السلام عليكم waa doctor dr amaantiin baydi salaamaya markana waxaan maarta ka hadli doonaa takhasusiyada takhasuska waxa aynu ku soo qaadanaynaa ka la yiraahdo obstetrics and gynecology oo ah dhakhtarka uurka ka hor xilliga ay haweenku uurka leedahay iyo uurka ka bacdiba dhalmada xilliga dhalmada laftiisa isaga qaabilsan iyo sidoo kale xanuunada ku dhaca habdhiska taranka haweenka marka halkan waxaanu kaga hadli doonaa qaybaha uu sii qaybsamo hadaba ama takhasusyada ka sii farcama takhasuskan oo kala ah takhasuska la yiraahdo maternal fetal medicine oo ah ka hooyada iyo ilmaha marka muxuu markaa kan qaabilsan waxa uu kan qaabilsan yahay isagu si gaar ah ugu sii takhasusay waxa weeyaan ciladaha ku yimaad haweeneyda marka ay uurka leedahay tusaale haday haweeneydu qaadi kari weydo oo sidkeeda dhameysan weydo isaga la tacaalaya sidoo kale hadii marka ay uurka leedahay biyaha ilmuhu ku dhex jira ay yaraadaan sidoo kale isaguna la tacaalaya xaaladaha keenayo daweynaya hadii ay haweeneydu qabto xanuuno kale oo maaragtay jiitama sida macaanka oo kale isaguna maaragtay si gaar ah ula tacaalaya marka isagu waxa uu qaabilsan yahay xalinta dhibaatada hooyada sidatawi takhasuska kale isaguna maaragtay ka sii farcama kan waxa la yiraahdaa reproductive endocrinology marka waa reproductive endocrinologist uu noqonaya marka ku takhasusaya adigu waxa weeyaan uu kan qaabilsan yahay waa dhanka xalinta ciladaha hormoneed waayo reproductive waxa weeyaan habdhiskan haweenka endocrinology waxa weeyaan hormone weey marka labadu way noqon karaan dhakhtar haweeneed oo ku takhasusay markiisa hore obstetrics and gynecology amaba daweynta xanuunada haweenka isagoo ku takhasusay ayaa waxa uu qaadan karaa takhasusyo maxay ahayd sanado kale 2 ilaa 3 suu u noqdo reproductive endocrinologist marka wuxuu wax ka baranaya hormoonada iyo sidii uu xalin lahaa maaragtay dhibaatada hormoneed ee haweenka ku timaada iyo si waxa iyagu adeegsanaya marka qalab waxyaabo badan baa la adeegsadaa ilmaha laftiisa waxa laga yaabaa in lagu beeraba in meel ka baxsan hooyada maaragtay uurka ama makaanka ka bacda iyada marka lagu beero marka qalabyo waxyaabo badan baa la adeegsadaa sida maaragtay ilma abuurista qaabilsan marka labadu way noqon karaan endocrinologist kuna sidoo kale waa noqon karaa marka hadii marka hore dhakhtarka ku takhasusay hormoonada waxa uu isaguna qaadan karaa marka kan isagoo wax ka baranaya dhankan haweenka xanuunada haweenka marka labada ka way isugu yimaadaan marka waxay qaabilsan ku soo koobo kan reproductive endocrinologist waa dhanka sidoo kale waxa la yiraahdaa waa reproductive endocrinologist and fertility way yiraahdaan marka haweenaynu waa dhakhtarka ku takhasusay dhanka dhalmo la'aanta oo kale marka ay dhibaato kaga timaado lamaanaha dhanka dhalmada ayay xaliyaan ilmka ilaahay oo cilmiga lagu xalin lahaa ku xeel dheeraada takhasuska kale aynu maartay isagana ku soo qaadanna halkan waxa weeye kala yiraahdo ka sii farcama kan haweenku waa kala yiraahdaa gynecology iyo oncology marka maadadaas u baranaya una ku takhasusay marka gynecologist oncologist ku noqonaya marka muxuu yahay waxa weeyaan dhakhtar haweeneed ku sii takhasusay kansarka ku dhaca haweenka kansarkaas oo ku dhaca horaadada ku dhici kara ama naasaha waa kansar ku dhici kara makaanka ama ilma galeenka qaybihiisa kala duwan sidoo kale ka ku dhici karaya isla ilma galeenka qaybtiisa hoose ee la yiraahdo qoorta makaanka ama qoorta ilma galeenka marti kansarka ku dhaca adigu isku soo duub waxa weeyaan dhakhtar ku xeel dheer kansarka ku dhaca haweenka gaar ahaana habdhiska taranka ee haweenka
takhaasuska kaa kusii xiga aynu maaragtay soo qaadanayna isaguna muxuu yahay ee kasii farcama obstetrics and gynecology waxa weeye ka la yidhaahdo urogenologist oo isaguna muxuu yahay waxa weeyaan isla dhakhtarkii habdhiska taranka haweenka ku takhasusay oo qaatay cilmi ku saabsan habdhiska kaadimareenka marka xanuunada kaadimareenka tusaale muxuu markaa daweynaya waxa weeyaan haddii haweeneyda ay ku timaado ciladaha tusaale haweeneyda baa qosashay deetana kaadi waa ka fakatay sababaha ku yimaadaan oo kale ayuu maaragtay isagu daweynaya marka waa taas waxay la xidhiidhaa waa habdhiska kaadimareenka iyo cilmigiisii kale ee ahaa maaragtay habdhiska kale ee maxay taranka ayuu isku darsanaya marka waa urogenologist buu noqonaya marka waa kaasina aynu ku soconno kan shanaad aynu kusoo gabagabeynaynaa maaragtay waxa uu noqonaya waa intaan kasoo qaadanayne ugu muhiimsan waa weyni waxa weeyaan kan la yidhahdo complex family planning marka family planning kaasun adigu ku dhig waxa weeyaan waa ka taliya qorshaha qoyska sida hadday rabaan inay haweeneydu uur yeelato kale waxaan ujeedaa haddii ay rabto haweeneydu inaan uurba yeelan maxaa la siinayaa marka dawooyinkeebaa loo qorayaa ma dawo afka laga qaata baa lagaga ilaalinaya ma waxay qaadanaysaa waxyaabaha kale ee maaragtay ilma qaadista la iskaga ilaaliyo hadday tahay mid makaanka dhexdiisa la gelinayo ama mid lagu mudayo bay qaadanaysaa marka waxyaabahaasoo dhan ayuu isagu qaabilsan yahay dhakhtarkani oo gaar u siiya sidoo kale waxa uu qaabilsan yahay waxaan kule islaamka qusayn oo ah ilma iska soo ridista waxa la yidhahdo marka kule mar haddaan dee cilmi sheegaya waa ku daraya si uu qofkii doonayo halkan uu maaragtay cilmi ka helo waxaan ka sheekeynayo iyo maaragtay ka faa'iideysto inta kala qaybsamaan uu ogaado lafteedu marka taasna waa qaabilsan yahayoo wixii iska soo xaadhisa ayaa isaga loogu tagaa marka waa taas shantaasna kasoo qaadanayna maaragtay qaybaha aynu qaybinay dhakhtarka ku takhasusay habdhiska taranka ee haweenka haddii aad doonayso maaragtay maad xiiseynayso qayb aad jeclaan lahayd inaan kasoo hadlo oo ku saabsan takhasus aad jeclaan lahayd inaan ka faaloodo qaybaha usii qaybsamo waxaad iigu soo qori kartaa dhanka faalada sida maaragtay inanta halkaa soo dhigay maaragtay codsigeedu lafteedu ayay igu soo qortay oo doorkii hore ayay kusoo qortay inay doonayso inaan ka hadlo obstetrics gynecology maaragtay takhasusyada usii qaybsamo marka waad kusoo qori kartaan haddii aad farabadataan qaar badan soo qoraan waxaan dooran doonaa hadba ka loo bato marka waa taas waxaan rajeynaya wax ka faa'iideen wassalaamu calaykum